ciidamo fara badan oo ka tirsanaa maamul goboleedka Puntland oo ay ku jiraan saraakiil ayaa la sheegay gabi ahaanba in ay howlihii ciidanimo isaga tageen oo ay ku biireen ciidamo kale oo sii joogay deegaanka Laascaano ee gobolka Sool. wariyahayaga Maxamed Shaqale ayaa warkan noo soo diray. sida uu warbaahinta u sheegay Maxamed Cabdi Geelo oo ahaa taliye ka tirsanaan jiray ciidamada Puntland in isaga iyo ciidamadiisa oo gaaraya 410 askari iyo dhowr tiknika ay ku biireen xoogga Sool Sanagacayn. ciidamadan ku biiray ayaa waxay fariisan ku lahaayeen magaalada Tukarraq ee gobolka Sool iyadoo xaflad ay u biirayeen oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin cuqaal iyo odayaalba lagu qabtay magaalada Tukarraq. afayeenka aaga bari Cabdi Daahir oo kulankii labada ciidan ku midoobayeen ka hadlay ayaa sheegay in maalmahanba la waday sidii loo midayn lahaa ciidamadan wuxuuna si gaar ugu mahad celiyay Aadan Cali Ducaale oo ka mid ahaa qurbadooga deegaankan oo si weyn uga qayb qaatay. maxamuud Boorteen oo ah taliyihii soo wareejiyay tiknikadan iyo ciidamadan ayaa ugu horreyn ammaanay qaabkii loogu soo dhaweeyay biiritaanka ciidamada Sool Sanagacayn wuxuuna tilmaamay maleeshiyaadka tirada badan ee deegaanka ku sugan in la mideeyo. dadkana waa dadkii maamulka Puntland ka tirsanaa horena u dhintay ilaa hadeerna aan maamulka Puntland ka soo bixin laakiin maamulku ka gaabiyay danihii iyo hawlihii saddexda gobol ay lahaayeen taasoo iyada lafteedu sababtay in Puntland iyada lafteedu imika ay cadawyo ka taag darani ay huriyaan inay ridaan taana anagu waxaa noo muuqataa oo arkaynaa ka gaabintii ay dawladdu ka gaabisay midaynta ciidamada dalka jooga oo ciidamadii qaranka ahaa oo ay ku lumeen aaga bari kol Faysal Maxamed Xasan Falaalug ahna xildhibaan ka tirsan golaha khusuusiga ee Sool Sanagacayn ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan ciidamadan saddexdan gobol ka kooban ku dhacday tafaraaruq ahayd ku kala qaybsanaa midow ay ku midoobayaan bay ku saabsaneen waxaa jiray ciidamo meesha hore jabhada u ahaa iyagoo aan magaca SSC markaa magaranayay sida hadda hoggaanka u samaysmay uusan u samaysmay waxaa jiray kuwa kale oo magaca SSC ah oo Puntland ka tirsanaa jiray kuwa maxay ahaydey yara deegaanada la magacaabay jooga walkooda jabhad ku agaa jiray. intii waxaa ka hadlay caaqil ka mid ah cuqaasha deegaankan oo marka hore ka warbixiyay xaaladda deegaanka. haddii maanta ciidamada isu yimaadeen iyagoo isku kalsoon oo maamul bakir oo qaadanay oo haddii ba ku rooyahay cududooda iyo xoolahooda iyo maalkooda iyo dadkooda ku kalsoon hadday iyagu midoobeen oo u qalab qaat waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waa saan sugaynay waa salaamaynaa. Somalidu,